معهد كسمدون دكتور أويس شعلي iyo professorada iyo dhaqaatiirta iyo ardayda iyo dhammaan rag iyo dumarba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Run ahaantii ka dhalinyaro ahaan aqoonyahanada dhalinyarada Muqdisho run ahaantii waxaan inta badan aan ka hadli lahayn waxaa ka hadlay dhaqaatiirta iyo professorada ayaan ka hadlay. waxaa inta badan lagu celceliyay federalism waa maxay iyo political reconciliation goormo imaada iyo kulliyada laba ciwaan oo aad uga weyn waaye. Aniga hadda takhasuskii aan diyaariyaa waxaan ku diyaariyaa waxa waaye sheegay topican federalism and political reconciliation in Somalia. Federalismka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa hadda aan diyaariyaa waqtiga xaadirkan. kulliyada federalism waa maxay waa la soo weydiiyay hoos loo sheegay loo dagaal lahay wax badan la sheegay laakiin aniga micna ahaanteeda waxa weeye commentiga ma aragtay suggestion ka soo jeedinaya waxa waaye federaalku waa nooc kamid ah baahinta awoodda siyaasadeed ee xukuumadda kaas oo loo qaybinayo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. tusaalaan soo qaadana dalal badan oo waxa jira oo kamid ah oo federalismka qaateen qaar kamidna oo ku fashilmeen qaar kamidna ma aragtay wali wala daal dhacayaan. Federalismku wuxuu soo bilowday qarnigii 19aad ayuu soo bilowday ama soo ifbaxay abuurista dawlad goboleedyo cusub oo federalism ah sida Switzerland iyo Mareykanka ay labadaas markii hore wada qaateen kadibna waxa dhacday waxay gaareen political reconciliation ay dhacday oo inay dib ma aragtay dib u heshiisiin siyaasadeed inay ku soo dabaalaan. maanta waxaa jira 193 dal ayaa jirto oo qaramada midoobay qiyaas ahaan 30 waa federal magacyada qaarna waxaa kamid ah Argentina, Brazil, India, Australia, Nigeria, Ethiopia, Pakistan, Canada, Spain, German iyo Koonfurta Afrika iyo Australia iyo Kenya iyo Mexico. tusaalaan soo qaadana wadanka Imaaraadka Carabta waa wadan yar oo aad u dhaqaale badan wuxuuna leeyahay sheegeen waana hal diin waan hal dhaqan iyo wada leeyihiin laakiin Abu Dhabi markaan soo qaadano labadooda waa ka kala madax banaan yihiin dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha. dhowr jeerna dhinaca ma aragtay qaabka hadda federalismku noo haya ayagana waa soo maray. waxaa isku keenay dawladda Ingiriiska weyn heshiisiis waxayna ku midoobeen UAE United Arab Emirates ay ku midoobeen political reconciliation ayaa ma aragtay Ingiriiska ku soo dabaalay dib u heshiisiin siyaasadeed. tusaalaan soo qaadanaa labaad Comoros Africa iyo jasiiradda Iceland iyo jasiiradda Nevis iyo ku yaala bariga Caribbean ku taale waa jasiiro aad u yar waay waxayna isticmaalaan inta badan federal ay isticmaalaan waxa xaqiiqo ah in federaalka laga hirgeliyay dhowr meelood oo kamid ah deegaanada colaadaha ka jiro. inta badan federal maxaa laga hirgeliyaa inta badan waxa laga hirgeliyaa dawladaha colaadaha ka jiro sida waxa lagu tijaabiyay sida Bosnia Herzegovina ayaa lagu tijaabiyay dimuqraadiga Kongo ayaa lagu tijaabiyay Ethiopia ayaa lagu tijaabiyay Suudaan ayaa lagu tijaabiyay Iraq ayaa lagu tijaabiyay Kenya ayaa lagu tijaabiyay Koonfur Afrika ayaa lagu tijaabiyay Sri Lanka ayaa lagu tijaabiyay Nepal ayaa lagu tijaabiyay. wada hadallada federaalnimada kuma uusan bilaaban Soomaaliya hadda waxay soo bilaabatay bartamihii 1950 ayay soo bilaabatay markii xubno kamid ah golaha deegaanada Soomaalida ee hoos yimaada maamulka Talyaaniga keenay dhaqdhaqaaq wuxuu keenay federaali ah ee golaha mooshin ayaa mar dambe la jabsaday sababtoo ay Soomaalidu waqtigaas ma aysan arag wax dawlad ah ama wax ku saabsan federaal waxay rumaysanayeen inay yihiin bulsho isku mid ah. waa 1950 soo bilaabatay waqtigaas waa xubin muhiim ah codsi soo jeediyay Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Soobe ayaa soo jeediyay in ma aragtay dadka Soomaaliya loo sameeyo political reconciliation dib u heshiisiin loo sameeyo maadaama hal diin iyo hal dhaqan ay wada leeyihiin. kulliyada committee-gan soo dhiibay waxa waaye kadib waxaa soo wada xaajood muddo dheer socday oo ka socday Kenya ayaa la doortay federalism 2004
sababaha waa maxay sababaha ugu weyn ee federalismka Soomaalida u doorteen